shantii bishii December sanadkii 1980 waxaa dunida ku soo biirtay jaamacad ka duwan jaamacadaha kale ee dunida. golaha guud ee qaramada midoobay ayaa isku raacay qaraar nambarkiisu ahaa 35 iyo 55 kaasi oo lagu aasaasay jaamacadda nabadda ee qaramada midoobay. dalka Costa Rica oo ah dal ku yaala bartamaha Amerika ayaa gacan weyn ka geystay hindisaha jaamacaddan oo magaceeda loo soo gaabsho UPeace. fikradda ka dambeysay aasaaska jaamacadda waxay ahayd in la dhiirigeliyo nabadda iyo horumarka adduunka oo dhan. jaamacaddu taariikh fog bay leedahay oo ka imaanaysa dadaaladii loo galay in adduunyada nabad laga sameeyo wixii ka dambeeyay dagaalkii koobaad iyo kii labaad ee adduunyada oo dad fara badan ay ku dhinteen. qaramada midoobay oo ahayd hay'ad caalami ah oo adag ayaa loo arkay inay tahay hay'adda ugu wanaagsan ee gacan ka geysan karta fududaynta jaamacad noocan oo kale ah. ujeeddadu waxay ahayd in la isu keeno dad salahaan kala duwan iyo in la abuuro madal fikradaha lagu wadaagi karo oo gacan ka geysan karta kobcinta nabadda adduunka oo dhan. jaamacaddu waxay bixinaysay hadafkeeda ah inay tacliin iyo aqoon ay u beddesho in bini'aadanku ay iyo ummaduhu iyo dawladuhu ay nabad ku wada noolaadaan, deegaanka la ilaaliyo, la xoojiyo maxaa la yiraahdaa iskaashiga caalamiga ah, la xoojiyo maxaa la yiraahdaa in yani si wada hadallo iyo is-afgarad iyo in laga maarmo in colaado iyo dagaallo iyo la isu isticmaalo. apoyado por todas las naciones del mundo. Rodrigo Carazo oo waqtigaasi ahaa madaxweynaha Costa Rica kana mid ahaa shakhsiyaadkii u oleeyay aasaaska jaamacadda ayaa fududeeyay in xarunta ugu weyn ee jaamacadda laga sameeyo dalkiisa. ku dhawaad 41 sano kadib jaamacaddu waxay noqotay mid caalami ah oo ku baahday dunida, waxayna faracyo ka samaysatay dhammaan qaaradaha dunida oo ku jirto qaaraddan Afrika. waxay ahayd runtii tacliin dhinacyo kala duwan ardayga maaragtay ishii ka kabayso una sahlaysa inuu dhibkii jiray inuusan hal dhinac uusan ka fiirin. ku soo dhawaada documentary-gan oo aan ku eegi doono saamaynta jaamacadda nabadda ee qaramada midoobay ee ku yeelanaysa Soomaaliya iyo sida ay isugu dayeyso inay gacan uga geysato dhisidda nabadda iyo dhiirigelinta horumarka. waa cusub oo u bariya caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho oo ah magaalo soo martay dagaalo ba'an 30 sano ee la soo dhaafay. dagaalo bilowday horaantii 90-meeyadii ayaa waxa ay sabab u noqdeen inay burburto dawladdii dhexe, waxayna horseedeen dhimashada dad ay adag tahay in la qiyaaso tiradooda, barakac iyo xaalad qaxootinimo oo aad u dhib badan. waxaa kale oo ay dagaaladu burburiyeen kaabayaashii dhaqaalaha muhiimka ahaa oo ay ku jiraan nidaamkii waxbarasho, kala dambayntii iyo wax soo saarkii. hase yeeshee 10 sano ee ugu dambeeyay Soomaaliya waxay ku talaabsatay horumar la taaban karo oo si cad uga turjumaya in dalku uu shakil-aan cagta saaray labadii dib u kabashada oo dhinac walba leh. Soomaalidu waxaa la oran karaa sida yani ay la noogu tilmaamo inaan astaan u nahay colaadda iyo fashilka dawladnimada ayaa haddana waxaa loo dhihi karaa Soomaalidu maxaa la yiraahdaa juhdi weyn bay xusu sameeyeen nabad inay abuuraan oo waxaad garan kartaa dadweynaha Soomaalida ama ha noqdaan private sector-ka ama ha noqdo bahda qaybahooda kala duwan, bahda caafimaadka, waxbarashada, juhdi fara badan bay waxay geliyeen nabaddu. hawliga uu ku socdo maalgashiga gaar ahaan dhinaca dhismaha iyo dhaqdhaqaaqa ganacsiga ayaa ka turjumaya isbeddelka wax ku oolka ah ee ka dhacay dalka, gaar ahaan nabadda iyo kalsoonida sii kordhaysa. sidoo kale waxaa horumar hawli ah laga dareemayaa dhinaca waxbarashada. dhowrkii sano ee la soo dhaafay waxaa sare u kacay maalgashiga dhinaca waxbarashada, gaar ahaan tacliinta sare. ma sahlana in jaamacaddii laga bilaabo Muqdisho, waxaase baahidaasi keentay in aqoon-yahanada Soomaaliyeed ee ka shaqeeya gudaha dalka ay helaan fursad ay kaga faa'iideysan karaan jaamacadda nabadda qaramada midoobay takhasusada ay bixiso, iyagoon u baahan inay dibadaha u doontaan waxbarashadaas. haddaba iyadoo ka faa'iideysanayso xaaladda nabadgelyada ee soo hagaagayso, jaamacadda nabadda ee qaramada midoobay ayaa barnaamijyadeeda ka bilowday Muqdisho dabayaaqadii sanadkii 2018, waxayna shahaadada masterka u diiwaangelisay dufcadii ugu horeysay ee arday ah. waxaa la siiyey fursad ay ku takhasusaan duruusta la xiriira nabadda, maamulka iyo horumarka, deegaanka, horumarka iyo nabadda,
ka hortagga iyo maaraynta musiibooyinka iyo sharciga caalamiga iyo xuquuqda aadanaha. iminka waxaan fahmayaa marka uu colaad jirto sidaan u wajihi lahaa colaadda sidaan u wajihi lahaa haddaan rabo dadka inaan dhexdhexaadiyo wadiiqadii aan mari lahaa haddaan rabo in aan ableeyo waxa la yiraahdo colaad jirta tuuliskii ama hanaankii hubkii qalabkii aan adeegsan lahaa si aan u fahmo dadkuna u fahmaan colaadda. dad badan fursadani waxay u arkeen mid dhif iyo naadir ah maadaama ay u sahlayso koorsooyin gaar ah oo khuseeya machad sare. waxaa kale ay fursadani u sahlaysa in iyagoo shaqooyinkoodii wata ay waxbarashadiina ku dari karaan maadaama aanay u baahan doonin in dalka dibaddiisa ay u safraan. asxaab badan oo aniga aan aqaanaa waxay u aaday Addis qarash badanaa kaga baxay way u dhibaatoodeen sababtoo ah ka fakar marka lagu yiraahdo 2 week 2 sitimaan ama 2 isbuuc xamar soo joog oo waxaad soo samaysaa paper ka soo shaqee mawduuc ka soo fakaro ka soo hadalo soo dir oo hadhowne soo ku soo noqo Addis Ababa 2 isbuucna magaalada Addis Ababa ku noolow oo jaamacadii ma aragtay class ahaan u aad markii lagu yiraahdo aad ay u adag tahay runtii marka anaga waxaan isleeyahay marka qarash ahaan xataa waa ka duwanaanaynaa ardadii hore uga baxday saaxiibaday markaan u sheegay oo aan wariyay jaamacadii halkan la keenay waxay yiraahdeen wallahi qarasha meeshaas idin kaga yaraaday waa nasiib badan tihiin. waxaan xasuustaa 2016 baan jaamacadan lafteeda baan codsaday oo Costa Rica u dirsaday $15,000 baa la igu yiri markaas waliba waxaa la ii sameeyay 50% waxaa la yiraahdaa baa la iga dhimay iminkana 3 meelood oo qiimo ka sii yar baan ku dhiganay marka waxay ahayd fursad dadka Soomaaliyeed oo dhan u furantay oo ay kaga faa'iideysan karaan ayagoo gurigooda jooga. sidaa darteed cidna kama qarsooneen muhiimadda ay leedahay in jaamacadda nabadda ee qaramada midoobay ee barnaamijyadeeda ka hirgeliso Muqdisho. jaamacaddu waxay wadatay cilaajkii loogu talagalay dhibaatooyinka Soomaaliya ka socda waxaan ku matali lahaa dhul kaneeca badan ama maaragtay sheeg duumadu ay ku badan tahay oo dawadiina aan loo hayn nin la yimid dawadii kaneecada maaragtay sheeg waatan marka dadku waxay heli karaan fursad marka dhulka inay ku sii noolaadaan kaneecadii xal u helaan waxa la dhigi jiray qofkii ka bukooda maaragtay sheeg ay u heli karaan dawadii iyo maaragtay sheeg marka runtii jaamacaddu xilli fiican bay Soomaaliya timid oo waliba maaragtay sheeg dadku ay nabadii aad u naaloonayaan. laga soo bilaabo 2002 magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia ayaa waxay xarun u ahayd barnaamijka jaamacadda UPS ee qaaradda Afrika. waxaa halkaasii u safri jiray sanad walba kumanaan arday ah oo ay ku jiraan Soomaali si ay u gaaraan hadafkooda waxbarasho kuwaasi oo ku bixin jiray waqti iyo lacag dheeraad ah waxbarashada. UPS started academic programs in Africa in 2002 and presently since 2016 UPS has been expanding its academic programs in Africa. Soomaaliya oo cagta saartay wadadii soo kabashada ayaa si degdeg ah uga faa'iideysatay fursadani lagu tababarayo laguna soo saarayo dad leh aqoon dhinacyo badan taabanaysa sida nabadda, amniga, horumarka, diblomaasiyadda iyo deegaanka kuwaas oo muhiim u ah dib u dhiska dalka. in ka badan 300 oo arday ayaa haatan ku guda jira waxbarashadooda shahaadooyinka masterka iyo PhD halka ay horey u qalin jebiyeen 101 ku dhawaad 100 arday oo kale ayaa la filayaa inay qalin jebiyaan sanadkan. koorsooyinka laga heli karo jaamacadda waxaa ka mid ah koorsooyin ku saabsan nabadda, maamulka iyo horumarka, deegaanka, horumarka iyo nabadda, maaraynta iyo xal u helidda musiibooyinka iyo sharciga caalamiga ah iyo xuquuqda aadanaha iyo kuwa kale. si kastaba ahaatee bilowgii hawsha ma ahayn mid fudud. xaaladda amniga oo liidatay awadeed way adkeyd in lagu qanciyo macallimiin ajnabi ah inay dalka u soo safraan, laakiinse dadaal dheer kadib waxaa la helay macallimiin badan oo ajnabi ah. waxaa taa naga kaga gudubnay iyadoo markii hore aan casunnay madaxa qaybta barnaamijka Afrika oo naga aqbalay inuu yimaado xamar
arkayna in muqdisho ay nabad tahay kadibna uu warbixin siiyey macallimiintii oo ku soo dhiiriday iyagana inay yimaadaan muqdisho. waxaa kale oo caqabad noqday cudurka baahay ee COVID-19 kaasi oo khalqal ku abuuray dunida tan iyo bilowgii 2020 mamnuucidda safarka ee dalal badani soo rogeen si loo xakameeyo faafidda cudurka ayaa sababtay in la waayo macallimiintii ajnabiga ahayd balse waxa uu xalka noqday in dhammaan la joojiyo casharadii foolka ahaa ee ardaydu ku geli jireen fasallada waxaana lagu bedelay in casharada lagu qaato aaladda fogaan aragga sida Zoom-ka oo kale. iyada oo weli sii socdo halganka dib u dhiska qaranka lana qaadayo talaabooyin wax ku ool ah ayaa iyaduna waxaa dadaalka dhinaceeda ka sii wada jaamacadda nabadda ee qaramada midoobay. waxaa la rajaynayaa in jaamacaddu ay gacan ka geysan doonto soo saarista aqoon-yahano iyo indhergarad kuwaas oo jihayn doona mustaqbalka dalka gacanna ka geysan doona xalintooda. sida la ogsoon yahay mar walba laguma tirsanaan karo dad shisheeye iyo wadamo shisheeye daraasaad ay sameeyeen. waxaa loo baahan yahay aqoon-yahano waddanka aqoon u leh, xogtiisa og, dhaqankiisa og, inay iyagu cilmi baaris ka sameeyaan iyo duruufihii la soo maray wax ka og waxna ka qori karaan. waxaan fadhiin u dirayaa in ay sii labalaabaan, in ay daadejiyaan. dalku waa federaal, in loo daadajiyo maamul goboleedyada sida Puntland, Jubbaland, Koonfur Galbeed, in laga wada furo isteediyada oo dhan.